بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا خالصا لوجهك. وفرقي شناد محاضرة دي أنو مقعدرني أما وقا مقعدكني بين المنهج السلف والحزب السلفي. wax badan waxaa inoo soo cadaaday amaan soo cadaynay inta tabarteena inay laba kala yihiin manhajka salafka iyo madhabka ahlusunna waljamaaca iyo koox sheeganaysa oo markaa waxna ku waafaqsan waxna ku khaldan. marka dadka madhabka sheeganaya iyo madhabku inay laba kala yihiin, dadkuna marna u dhowaan karaan, marna ka fogaan karaan, marna ay xaqiijin karaan, mar wax ka khaldanaan karaan. iyo qolyahan hadda aan ka hadlaynay ee aan ku tilmaanay xisbiga salifnimada sheegta iyo maraaxiishay soo mareen, say ku bilowdeen, say u kala harhareen, say xisbiye fara badan u noqdeen ayaan ka soo hadalnay. waxaa inoogu xigtay oo raba inaan ka hadlo culimmada muslimiinta ee caalamul islaami maxay ka dhaheen fikradda iyo madhabka ay qoladani ku socdaan. waxaa kaloo iigu xigtay inaan tilmaamo waxaa aad ay u soo bandhigaan oo ay yidhaahdaan culimmada waaweyn baa taskiyeeyey. sheekh ibnbaas baa taskiyeeyey, ibnu cuthaymin baa taskiyeeyey, albani baa taskiyeeyey, fawsaan baa taskiyeeyey. marka taskiyo maxay ka dhigan tahay? taskiyo maxay ka dhigan tahay sideedaba? iyadana mowduuc gooni noo abuu ahaa. caawa inaan labadaa ka hadlan rabo, laakiin waa ka soo booday. dib aan u dhigi doonaa insha allahu tacaala. waxaan xalaqadan ku qaadanaynaa insha allahu tacaala mukhaalafaadka iyo mabaadi'da ay kooxdani ku khilaaftay madhabka ahlusunna waljamaaca iyo khaladaadkoodu meelaha ay ku jiraan iyo simaadkooda iyo calaamaadkooda, dhaqamadooda. waana muxaadarada meesha ugu muhiimsan waaye. intaana gudagelin waxaan doonaya inaan baraarujiyo. xalay waxaan ka hadlay oon sheegay fikirkani iyo raggiisu inay laba meelood ka soo galeen soomaaliya ama deegaamada soomaaliya u degso. dhinac waa almadrasa alyamaniya sheekh muqbil calayh raxmatullah iyo ardadiisii, dhinacna waa khaliijka oo waa sheekh rabiic iyo isagana atbaacdiisii dhankaas. labadaa dhinacba inay ka timid. dhanka almadrasa alyamaniya waxaan ku ammaanay inay leedahay ay maraakiis sameeyeen ay ardada wax ku baraan, taasoo mudan in la dhiirigeliyo, in lagu garab istaago wixii cilmi iyo khayr dadka barayaan. laakiin aan idhi muxuu ahayey cudurkaas ah quluwiga, tabdiica iyo tafsiiqa iyo tadliilka oo bidcayntan aan dawaabideeda iyo culimmadu u dejiyeen aan la ilaalinaynin, iyo af adayga iyo mukhaalifkoon loo turin iyo in laga hijroodo, cudurrada noocaasoo kale ah in la yska ilaaliyo. kama hadlaynin markaa yacni duurulxadiidkii ama maraakiistii magaalada ku sii yaallay ee madrasadaa ku abtirsanaynin kama hadlaynin. waxaan ka hadlayay almadrasa alyamaniya, dhallinyaradii wax ku soo baratay iyo maraakiistay aasaaseen. iyaga laftoodan kala qaaday oo waxaan idhi qaarna
khayr allah siiyo ictidaal iyo iqtisaad baa ka muuqda oo waxyaalaha haddaan ka sheegaynayna quluwigaasi inta badan muraajacaad bay ka sameeyeen ilaahay khayrka ha waafajiyo qaarna weli meeshay u taagan tahay oo weli quluwigaasaa ku jira sidaasayna iyaga laftoodu hadda usii kala baxbaxeen oo u kala hadheen marka kamaanan digin maraakiista in wax laga faa'iidaysto bal waan ku talinayaa dalabatulcilmiga intii suurtagala in cilmiga laga qaato culimmada iyaga ha noqdo culimmada kale ha noqdeen doctor axmed imaam ha noqdo maxamed muxuu ahay iyo markaskiisa daarulxadiid duurta kale cilmiga lagu barto laakiin wixii uun khalada la iska ilaalinaya wixii khalida sheekhaga ka qaadan mayso sheekh kalena ka qaadan mayso diinta khilaafsan xadguduba hebel maag hebel iska ilaali hebel bidcee hebel ka haajir waxyaalahaas wax laga qaato ma aha wadaad ku khaldan lagama qaato inaha unbaan leeyahay la iska ilaaliyo laakiin ma aha inaan leeyahay maraakiista iyo culimmada wax ku baraysa wax ka sheegaya maaha ama aan leeyahay aan waxba laga baran taa waan baraarujin lahaa oo macnaha inaan si khalada loo fahmin ayib haddii aan gudagallo mawduuceena caawa mukhaalafaadkan aan sheegi doono waxaan ka qaadanaynaa oo laga qaadanayaa tasarufaadka wadaadada fikirkan wata iyo taqriiraadkooda qoraalladooda mawaaqiftooda inkastoo marmarka qaarkood aad arkayso iyagoo mowqif qaatay oo masale ta'siiliyey haddana tatbiiq ahaan khilaafaya oo nooc tanaaquda ku jiro haddana wixii laga qaatay iyaga iyo mawaaqiftooda iyo kitaabaadkooda iyo qaabdhaqankay dadka ula dhaqmayaan ayaa arrimahan lagala soo baxay ama aan ka soo ururiyey ama culimmadu ka ururiyeen qodobka koobaadii waxa weeye alghuluwu wataqdiisu mashaa'ikhihim culimmadooda inay xad ka dhaafiyaan oo xadkii culimo lagu yaqaanay intay gudbiyaan ay ghuluwi ku sameeyaan sida sheekh rabiic iyo culimmada kale ayib oo markaasi ay noqoto salafinimo iyo ahlu sunno sheekh rabiic keligii baa haya ninkuu isagu siiyo unbaa salafiya ninkuu u diidana salafi maaha waxaa sidaa dhahaya in la yidhaahdo atbaacda sheekh rabiic ka mida oo magaciisa la yidhaahdo maxamed ibn cabdilwahaab albanna wuxuu leeyahay ina alinsaana yuxkamu calayhi biannahu salafiyun aw gayru salafiyin birabiic ibn alhaadi almadkhali faaladii yadumu rabiica almadkhali laysa bisalafiyin ruuxa waxaa lagu xukumay inuu salafi yahay ama uusan salafi ahayn rabiic ibn haadi almadkhali baa lagu xukumi buu leeyahay ruuxii caaya rabiic almadkhali ama wax ka sheega salafi maaha bimacnaa salafinimada iyo ahlu sunnanimadu tiirkay ku wareegayso iyo madaarkeedu waa sheekh rabiic mar kale wuxuu leeyahay وعلى كل حال الآن نعرف أو تعرف السلفي في كل العالم أول ما يسأل عن ربيع المدخلي تضرب عالم كينات وقعتنين سلفية waxa ugu horeysay weydiin waxa weeye rabiic ka waran وغير السلفي ما يسأل عنه فأنا أعرف السلفية من غير السلفي وأنتم كذلك ونحن نستدل على سلفية الإنسان واستقامته في هذا الزمان بحب الربيع روح سلفي نمديس هي توسنانتي سينو الدين تكو توسنياهي هي منهجك وحنكو قرنا الزمن كان إنو الربيع تشعلياهي ما إنو قرآنك يا كتابك الرحسيه ما إنو أي مدي سلف كي قرني صدحات يا كوبات يا صحابة الرحسيه waxaa lagu gartaa salafinimadiisa inuu sheekh rabiic jecel yahay
madaarku marka waxa weeye ay ku wareegayso sheekadu adiga sheekh rabiic kaadhkii salafinimada ma ka haysataa haddaadan ka haysanin ama aad sheekh rabiic wax ka sheegto salafi ma tihid hadalkaasi wuxuu ku yaalaa majmuuc kutub wa mu'alafaat sheekh rabiic internetkana ثناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا على ربيع المدخلي عنوان كاسات كهليسان وفي رسمركا حقي سلف النمدي وحلقو قرطا الشيخ ربيع سبحان الله أو قاعدة أهيد يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال قاعدة صح ساسوي رجع أيال وأقون صدا حقا لكن حق رجع يجو ميزان معها ميزانك هو حقه وكتابك يا السنة يا طريق الصحابة يا السلف كان ميزانه رجع الله قادا مركزا ميزانك الله صار ميزانك سعيد عمر خاتي كعاء يا لكن رجع يجو ميزان معه رجع ميزان معه شيخ مركز شيخ ربيع ميزان كل نقد أو مسلمين تورنا ميزان وكل نقد سلفي قودي يهل السنة وجيسي السنة لا عنديس الشيخ سليمان بن تيمية عليه رحمة الله وحوله في مجموع الفتاوى مجلد كلباتنات بقول إثناء أفر وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمع عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع روحي دتك الروح انتو استاجي هذا الروح هاؤن هذا الكيس يفعل السويدية بالله عليهم هذا الكاسي يوتيوب كمحمد المدخلي من دخل مكة ولم يزور الشيخ ربيع فهو مقموص عنوان كاس اليوتيوب كوجر هذا الكاس سؤال السويدية مرك واجباتك زيارة مكة واجباتك إن مكل سيارته أيا وحي قدرين زيارة الشيخ ربيع روح حج تجا أما عمرة تجانا واجباتك وحا كمذا إنه شيخ ربيع زيارته بلدو فير تبديلك أنت عليك يا واجب كدقة يا لازم يا شيخ ربيع لسو زيارته علماء كواوين باتشوكت صحابة النبي قاتشوكي شرتي يا يري هذا أبو بكر للسيارين أما عمر للسيارين دين هذا مقموص يعني واحد يقولوا يمشوا قدام بيوقعي مركا قولوا يقاسي حد قدوك أنت عليك وحي أهيد الشيخ وإنه يسكعليه ويقول هذا يقول حد قد بنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي أمانين بحيري لا تطروني هيقول حد قد بنا سيد النبي عيسى لو حد قد بنا إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله هيقول حد قد بنا وحدون الله بأنا رسول كيسينا وأنا انتهي لافننا خليك علماء إنه قال هذا ما هي اللي حد قد كون كو حد قد بيه هيركا قارسينينا يقولون وأتباع ديسي ورق دكاتري علماء طيب وحكم إذا مثلا نلي إلى خالد بن عبد الرحمن ويقنا أتباع ديسا ورقاس وحليه إمام أهل السنة الربيع المدخلي وإن أبى من أبى أهل السنة إمام كود وشيخ ربيع ننكي ديده هديدو وأوي علماء دي كواوينيت marka waa qodob waxa lagu yaqaana suufiyada iyo qulaada iyo khawaarijta iyo firqada daalada iyo raafidada ayaa waxay lagu yaqaanaa inay culimadooda nooc taqdiisa u sameeyaan dhaqanka ahlul bid'a waay dhaqanka ahlus sunna ma طيب waxaa ka mid ah arrimaha mukhalafaadka lagu haysto ee galan waxaa ka mid ah markay xukaamta la mucaamaloonayaan wixii siyaasadda iyo xukunka ku saabsan waxay ula mucaamaloonayaan qaabkii murji'adoo kale irjaa yani wax weeyaan in la iska fududeeyo wax weynaan laga soo qaado qawaacid bay marka meesha dhigayaan ama usuul khaldan waxa ka mid ah mukhalafaadka madaxda in si muuqato loo inkiro waa xaraan
si qarsoodiya ood isaga u tagto si aan ahayn haddaad u inkirto khaariji baa tahay xukumkii khawaarijtaadna qaadanaysaa war hadda nimankan loomaba tegi karaba yaa u tegi karo horta u naseexayn kara munkaraadkoodu hadduu diinta iyo dalka iyo wax kasta qabsado u tag haddaadan u tegi karin soo maaha iska aamus waa laazim haddaad ka hadashana ama wax ka sheegto si calanan ah waxaa tahay khaariji baa tahay asalkaasay taqriiriyeen wahuwa aslun lam yusbaq ilayhim aw lam yasbiq ilayhim axad cid uga horraysa ma jirto mas'aladaasi sida saxdaa waxa weeye madaxda khaladaadkooda in la baraarujiyo la inkiro waxay ku xidhan tahay siran wa calanan xasaba maslaxada iyo mafsadada ka ratimaysa aahaarta ku soo aroortay iyo nusuusta iyo mawaaqiftii saxaabadii iyo taabiciinta iyo a'immaduna sidaasaa lagu jamcinayaa haddii ay mafsado ka rajaxan ka imaanaysana waa laga aamusi haddii ay mafsado raajixa aynan ahaynna waa la inkiri oo alinkaaru calanan waa bannaan yahay fii xaalaatihi wa fii dawaabidihi laakiin mamnuuc ma aha khuruuj cala alaymana ma aha khaarijinimona ma aha mas'aladaasi tafsiilkeeda iyo wakhtigeeda leedahay laakiin hadda mitaalaan baan u soo qaadanaya laakiin wakhtigeeday leedahay in la keeno aqwaashii mawaaqiftii saxaabada salafkii culimmada hadda joogta ayaga agtooda laakiin qowlan waaxidan waa laasim haddii aadan si hoose wax ugu sheegi karin inaad iska aamusto oo waxay leeyihiin dadkii baa ku kacaya madaxdii oo tahyiij baa ka dhacaya oo khuruuj baa ka imaanaya oo kama laasimayso aslina talaasum kama dhexeeyo masaladu marka wakhtigeeda bannaankeeda leedahay laakiin wakhtigeedu leedahay laakiin haddana sidaa ay tahay ayagoo asalkaa taqriirinaya weliba aad ugu dagaalamaya bay haddana yatanaaqaduun marmarka qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo madaxdii weeraraya oo weliba meel kala dhacay maalan sheekh rabiic oo kale wuxuu leeyahay madaxda muslimiintuu ka hadlaya laa yaxkumuuna bishariicati alislaam ilaa hadihi albilaad buu leeyahay sacuudiga mooye wax kaloo shareecada islaamka xukuma ma jiro ayib kaasaa kadib wuxuu ku jiray kullu xukaami bilaadi alislaam al'aan ima raafidiyun ima baatiniyun ima cilmaaniyun kulluhum laa caqiida walaa shay taasuu leeyahay waddamada muslimiinta kuwa xukuma dhammaantood ama waa raafidi shiici ah ama waa baatini oo kaba sii daran ama waa calmaani diin la'aan ah caqiidana ma haystaan waxna ma haystaan buu leeyahay waa sheekh rabiic ayib dad kale markay ka hadlaanna waa khawaarij idinku markaad ka hadashaanna waa calaa ariiqati ahlisunna waljamaca soo maha waxaad ka heli kartaan youtube-ka الشيخ ربيع يكفر كل حكام المسلمين هذا الجلسان القاسي كجرتا وحقدر يديب دالي مid la yiraahdo maxamed raslaan oo ninka asad sunna ay u bixiyeen oo Masar wuxuu weerarayaa waa xilligii ay muxuu ahaay azmadii khaliijku taagnayd oo dawladaha khaliijka iyo Masar iyo ay isugu tageen Qatar turkiguna uu hiiliyay markaasuu hadlay markaasaa wuxuu leeyahay wuxuu weerarayaa madaxda Qatar iyo Erdogan wuxuu leeyahay alqiyaada alkhaa'ina alcafina الصهيونية الإخوانية ليس لها عدو على ظهر الأرض سوى مصر لأنه عميل قذر وابن عميل يكوذا أردوغان بكوذا هذا الأحمق بليه منبر بوسارين كان قدر حكومنا وحليه الصبي الغر العميل ابن العميل منبر بكاه الله ويل كايرك تعبان قابوا له هذانا محو هاي ابيهنا وعميلك يسوون عميلك
أردوغان زاسو كالو كله منبر مسجد بوكشيغي مركا وحوي حلال لكم حرام على غيركم واحد أصل كأيجا تقرير في بعض الحالات نوي خلافه مركا يقول دجالك وكل شراء دجالك وحو شراء مصر بو دجالك يدو كشراء وحو كشراء دجالك أي تركيا يسقسوا هرشيدن قطر هل كاسو وداتك دجالك كشراء ها وأسد السنة وأسد السلفيين وأهل السنة والجماعة في مصر واحد وذات كاس سيجوا إلى هذا وحكم إذا قضاياتك وخالفاتك عجيبك والله يستو حيالها عالم الإسلامي وقدر أنا وما أنت كتشراي يا آفاتك أقول وحكم إذا تعطيل الشريعة شريعة دي إلهي تبارك وتعالى سود الشيء هي قانون كي ربي سود الشيء إن أنت ماشى الله قصاره أنظمة كلا هي قوانين كلا الدساتير لقى كأنك قال ذا إن عالم الإسلامي محكمة دي يسلوه حكمه وسابقا عن عالم الإسلامي هذا كهر صومرين وسيدا إني أبلاد توي ميل والبقى ما صومرين واقعا يرى إقبا صومرت ميلك من عالم الإسلامي وحي آهيد تتاركوا مركي قبسدين عالم الإسلامي أي وحي كينين قانون أما كتابة ياسقكم مقعابين ياسقاسي وحا كتشرة وحنا الدين تيكاقاتين وحنا الرقمضو دي بيكا كينين يوحي الله الرومي سنايين مركزي دمحين العالم الإسلامي يدولك يستين أن يكون حكومان ومدى ابن تيمية عليه رحمة الله ابن قيم وحلل ابن كثير الشيخيان علماء المسلمين تواقع وحي فتوودين إنه كفر يقال لماذا مركز هذا كهر نظام قالوا الدستور قالوا عالم الإسلامي إن لقوا عممه تاريخ المسلمين تمصمرين سابقا واحد مشاكش وين عالم الإسلامي ما أنت يستنى كمتها أرنتا إن هذا الكائنتي سبدا لقوا شيديو أو لقى هالله ومنان لسيو بنيرة لقوا تربيهيو لقى نادعيو مسلمين تلقى وعي قليو باي أهيد لكن أيقو كهالله إن أدركت هو يرتاح وحاوقا مهم سنين كهالله وذاتك إسحيان مشكلة ده وين عالم كي هيست كفر تعطيل الشريعة بالكلية يا أنظمة كلا إلا قليل مشكلة ده كوين ما أنت اللي تعمل أما لقى حد لا أمد لقى وحي قليل هاي اكتوى هاي محو هاي هذا الكود إيو برنامج تودي وما بدنا وحكم إذا مثلا وقار كم إذا أيبا كوها لنا يكون واقعين حاكم ككافر كمتغلب كأه إنه إمام يهي حاكم كقال كأه هذو نقاله عالم الإسلامي قبصده أما ميل كم إذا قبصده حقنا إنه قبصده حكم كإمام مسلم بوقادنا إياه وإن مركا الله أضيعه يا بيعاد إلا السيو اللي يراهدو طلعت زهران ومصرية أيا وحوليه المتغلب هو الإمام سواء كان مسلما أو كافرا ولو أشنود تمكن الآن فهو الإمام أشنود متغنان يعني وحوليه هاي نينك مربها ضلك قبصده حوكو قبصده وإمام أما مسلم هذا أما قالها هذا حتى وحوليه أشنود هدو إنا قبصده وإمام بولي أشنود متغنان ووذاتك كنيسة اسكندرية محوها هاي كرازة المرقسية كنيسة اللي هذا وذاتك أوي واي وذاتك كنيسة قسيسك هدو مصر قبصده وإمام المسلمين هل كاسي وذات الله مرتباش قال لنا محوليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هدو قبصدو قال المسلمين تو قبصدو مسلمين تو إن إطاع السيان وبيع السيان وإمام اعترافان ما بنانا
وين دولكودا كعشدان وكقاتان ولا دغالمان hadday tabar u waayaan waa inay ka hijroodaan hadday meelood u hijroodaan waayaanna waa inay sabraan laakiin waa imaam ee beecaha la siiyo waa khilaaf ijmaaci almuslimiin meel ay adduunka ku taalo ma jirto nusuustii oo dhan bay khilaafsantay waxaa ka mid a haddaad rabtaan inaad muxuu ahaye marjiceeda heshaan youtube-kay ku jirtaa hadalkiisaasi طلعت زهران لو تغلب أشنود فهو إمامنا هل كازات كهلي كرتان هذات كهليسان حكم إذا وحيالها وإجماع كو خلافه وذات كاسي وذات اللياب للسجن وحوليه لو أن الحاكم جن لا تسقط ولايته مدحي مسلمين تأي مدحويني هدو واشو ومير كبوايو إمام المدي كدح ما يقوله warni waalan sabab muslimiinta madax ugu noqonay idan waa khilaaf ijmaaci muslimiin nin barba hadii ninka madaxda ah maanka iyo maskaxda uu waayo waasho toos buu imaamnimadiisu u dhacaysaa muslimiintu marka xilka cid kale u raadsanay marka xaakimka iyo qaabkay ula mucaamaloonayaan waa inay wax kasta oo u tabriiriyaan loo fududeeyo yani waxa weeye qaabkii irjaaga ay murji'adu ula dhaqmi jireen oo kaleeto waxaa ka mid a maalan xaakimka hadduu gaalnimo ku dhaco oo kufri bawaaxa uu bannaanka la soo istaago kuma dhiiranayaan inay gaalaysiiyaan بينما أفراد مسلمين مساكين تميلها تاك مذ هدو انتو منك مدحدي قال لماذا كل عاي بقول كيبة طبعا وحاد وغير كاس هدو كل عاي ولا قال يزين يا ساق الله قبل ماي بي الله قبل ماي حاكم كي قال لما كل عاي ولا قور وريقي قيل بالله رادنا حتى كفرك بوحها هذا مثال كيد وحوي وياهن دم بدنت لكن وياهن دم ميد كان سعودان مثال انه كسو قادايا waxa socota wax la yiraahdo الديانة الإبراهيمية أما البيت الإبراهيمي ما تقانن سدحد الديمود ويهودية يا النصرانية يا إسلامك سدحد هذا سنت الله يسكو قبتها وحلو بحيي الديانة الإبراهيمية أما البيت الإبراهيمي وحيلي صدح ذوب النبي إبراهيم بيكون أبتر صدان ويسكو تجان وحيكون أنبيادي لجوسو دشي سدحد الديمود كل جود إبراهيم بيكون أبتر صدان مركا الديانة الإبراهيمية أما البيت الإبراهيمي بيكون مقعبه وأرنت أي يهود يو ترام فترة دي هوري حلقة وهي إسلا سوقاتين يدولدها عربتا ميد كميدة قار كميدة برنامج كإسلا سو صلحين واحد وبرنامج كهذا إمارات كاللوغات لسي قوريقا مسجدك يا كنيسة يا معبد كيهود إساسارن يهودي حقها كقلو كريستن كنواتا كنيسة ديزي كان مسجد كي هالكن كقلا ولا لا تينديموهنا ووضع صح أي كفر أوضح من هذا الكفر قال لي ما كوين وكعد حقيت الله روحي إلى هذا دينتا أي كريستنكو هذا هيستان ويس أحسنتها أما إلى هذا دينتا يهود هذا هيستو ويس أحسنتها إسكدا اللي إلى هذا الإسلام كيلم يتهاي بإجماع المسلمين قال دينتا كبحيوها كفر الصريح هو محيل القرآن كالصريح يسيبوا البرينية مركا كفري النوع عاسى وذات كي مرده كروا كفري صابت وحوي ماشا ولا سودح فديها مدحدي باقي شي صوما انيك مدحدا marka waa loo qilday ha waxa jahli baa haya waa loo cudur daari ma sha Allah finna ka dhalan khuruj dadka aan lagu kicinin balaayo halkan la mari mid miskiin oo meelaha taag taagan haduu meesha intuu istaagay yiraahdo
يعني waxa way islaamnimada iyo kristanka iyo diinta yahuudigu waa isku mid oo kulli wada sax banaanka hadii laga maqlana gaal dhalay waay biyo loo kaban maayo war kufrigu waa kufri nin madax haduu ku dhaco iyo nin fardi oo shakhsi haduu ku dhaco kufrigu waa kufri macsiyaduna waa macsiyo ashkhaasta iyo martibadooda iyo makaanadooda ijtimaaciga shaqo kuma laha sheekh haduu ku dhaco nin madax haduu ku dhaco miskiin haduu ku dhaco faqiir haduu ku dhaco ya nabigeena sallallahu alayhi wasallam soo ma dhihin inma ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd wa aymu Allah law anna fatimata binti muhammadin saraqat laqata'tu yadaha umadii hore waxay ku alaagsameen haddii nin sharaf loo magac leh uu waxado gacanta mayna ka goyn jirin faraha ka qaadi jireen laana magac buu leeyahay waa madax dhaqaaluu leeyahay lama dhamaan karo nin miskiin oo tabardaran haddii uu waxadana inta la soo qabtaa gacanta laga goyn jiray nabi maxamed wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam cid kale iska badaay gabadhayda faadumo hadday xaddo anaa gacanta ka goyn buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka diintani ma taqaano wax la yiraahdo muxuu ahaayay wax la yiraahdo la jiifiyana banaan la joojiyana banaan xeer jajab ma taqaano xukunkeedu waa cadligaasina cid kastuu maray mid ma iimaanayso haddii aad baqayso ya wadaadow haddaad baqayso oo aad ka baqayso seefta madaxda khaladka madaxda ha tabriirini waxaa lagu ogolyahay haddaad baqdo intaad shib iska tiraahdo iska carar iska gabbo soo ma ilaa an tattaquu minhum tuqaa hadday baqdinku gasho lafahaaga adeer la gabbo laakiin khaladaadka nimankan ku jiraan ha tabriirinin oo ha u qiil bixinin oo kufrigan iska cad ee bannaanka yaallay ha ka warwareegin dad damacdo inaad ka hadasho siday uga hadal waxaa ka mid ah isla qodobka intayna ka bixin qaar ka mida kooxdani waxay bannaysteen in lala shaqeeyo mukhaabaraadka iyo sirdoonka dawladaha oo maxaa lagala shaqaynayaa ducaadda iskhilaafsan yihiin in lagu dacweeyo culimada iyo ducaadda ay kala ra'yi duwan yihiin in madaxda iyo dawladaha iyo sirdoonka loo isticmaalo arrinkan culimaduna waa sheegayaan cadaymana way leedahay waxaa ka mid ah maalan sheekh ibnu jibriin calayhi raxmatullah wuxuu leeyahay markuu iyaga ka hadlayay lam yadhar minhum ayatu athar walaa nafc bal saara dararuhum akthara min nafcihim xayثu sarafuu jamaahiira وأئمة وجماعات من هؤلاء الأخيار وأوقعوا في قلوبهم حقدا للعلماء ووشوا بهم ونشروا الفساد dadkii ka soo horjeeday bay dawladda ku direen buu leeyahay ninkii aan idin yidhi waxay u yaqaanaan asadu sunna oo maxamed ibn raslaan oo masar ninka madhabkan ragga ugu cadcad ka mida wuxuu leeyahay ikhwaanu muslimiinku ka hadlaya xaaribuuhum bikulli sabiil dulluuhum calayhim buu leeyahay jid walba ikhwaanu muslimiinka kula dagaalama dawladda sirdoonkeedana tusa dacweeya farta ugu fiiq hadalkaa hore waxaad ka heli kartaan muxuu ahay sheekh cabdallah ibnu jibriin youtube-ku ku jiraa kibaaru ulculamaa yatakallamuuna can idducaat ciwaankaas kan ibnu raslaanna isaguna wuxuu ku jiraa youtube-ka wuxuu leeyahay waxaad ka heli kartaan moxamed ibnu raslaan yuxadiru min alikhwaani almuslimiin ayib mar kale haddana wuxuu leeyahay moxamed ibnu raslaanka low ijtamaca jamaacatu min alطulaab cala ashabaka alcankabuutiya أو على شبكة العنكبوت وكانوا مجموعة لنصرة المظلوم في قرية هؤلاء خوارج وينبغي أن يعاملوا معاملة الخوارج وأن يدل عليهم وأن يرشد إليهم هذين من اللي يرى ميرت الدقمة أما التولا يسكور الصدان وأي لهذان عيد لقى قردرين هيبان أوهي لنا دولة قردران مياه
وحوليه كواس وإن لولا معاملة سيدة خوارج توكله وأنا إن دولة لغا شقي لا شقي ولا تصه ودولة لغو فر في قوة سردون كالي هذا ماشان يتشوغان ويلال دليارا ماشان اسكو urursan hayo doonahay in laga gardaro dawladdu ka gardaran tahay inay u heeliyaan marka dacweeyo buu leeyahay dawladdu ku dacweeyo waxa kale oo soo marnay oo qaraa'inteedii aan keenay goortii khilaaf ku dhacay oo qolyahan aan hadda ka hadlayna iyo culimadii kale khilaaf ku dhex dhacay waan soo marnay in dawladda loo isticmaalay oo warkoodii dawladda la gaarsiiyay dawladdana loo isticmaalay waa soo marnay iyadana cadaymeeda xaggan kaga soo hadalay waxaaba ka yaab badanba wadaadkii masriga hadda aan sheegayno طلع الزهران wuxuu leeyahay عمل الإخوة السلفيين هذا قاو في رسالة عمل الإخوة السلفيين مع مخابرات الدولة واجب ولا لها السلفيين تا إن يسردون كالدولة الله الشقيان وواجب والوركة دقيست هل سؤال مركز سويدية حقيقة قلتها على منهج كي سلفك هي الصحابة هي التابعين تا هي أئمة السنة حقيقة قلتها على ضد مسلمين وكل الرأي دوانتهين إن دولتها أئمة الجور كي مدحدي يسردون كود الله استعماله oo lagu diro oo loo jaajuuso xagee kaga jirta manhajka salafka hatta naqli waahida bal helay bal waxa la helaya imaam ahmed ali rahmatullah oo intay niman u yimaadeen xilligii waasiq oo ku yiraahdeen waasiq wuxuu ahaa yani waxa way yani waxa mu'taziladii ragii fikirka ihtisaalka qaatay waa ay culimadana dhibay oo fikirka aad ugu dadaalo isaga iyo maamuun iyo marka waxay ku yiraahdeen dibku waa batay sida nama fiirsan karno tilaaban rabnaa inaan qaadno oo maxaad rabtaan waxaan rabnaa ninkan inaan la dagaalano imaam ahmed wuxuu ku yiri sabra ya wax tilaabaha qaadina dagaalamina way ka diideen wayna ka tageen al-imaam ahmed ali rahmatullah intuu dawladda u tagay ma dhihin war dawladay dhiman meeshana is uruursanahayo dagaal qaadi rabee qabta ma dhihin haba yaraatay ma jirin rag fara badan oo muxuu ahay caan ku ahaa dhihi jiray aymatul jawrka waa la dagaalami karaa oo yani taqriirin jiray fiqhiyan abu xaniifa ka mid ahaa al-hasan ibn salih baa ka mid ahaa oo aymadii ka mid ahaa xadiiska ka mid ahaa ayaa haddana madaalika culimadu majaalistooda cilmiga khaladkooda ku baraarujin jireen oo ay dhihi jireen arrinkaasi waa khalad أئمة الجور كأن لقوا كعوة خلط لكن ما ينجاجوس جرين مركب وحكم التهاي وحيا لها عجائب كع طيب وحكم ذا هذا الله يعني وحوي مسألة ذا كوساب سن حكامته معاملات كذا وحكم ذا إن إلى هذان حكامته انحرافات كذا هلا قاموس إلى مدية كم إذا ودات السعودية أولها يجب جمع الناس على ولي الأمر حتى لو كان يزني نصف ساعة في اليوم على التلفزيون حتى مال كست مال كست هدو نصف ساعة مركي لا تشوغا با تلفزيون كدتك هرتودا هدو زينيستو نص ساعة كست مركو تشوغو تلفزيون كله سو فريسانا يا كو زينيسانا حتى هدينك مدحدا سيدا سميو wuxuu leeyahay ma inkiri karto waa inaad ama u tagto u naseexayso ama iska aamusto warsaas ma ahayne nin telefishinka la soo fadhiistay oo sinaysanay in xadka laga oofiyay ahay soo ma ahayn ilaa marxaati madoonto khalqigii oo dhan marxaati ka ah diintu ma kala laha ruux zina galay oo banaanka ku galay oo ummadii wada fiirinayso ma aha inaad tiraahdo ka aamusa waxa inaad tiraahdo in la soo qabto oo xad zina laga oofiyo waay maxaa ka baajinay ma inuu xaakim yahay baa ka baajinay marka waxa weey waa istintaajaad khatiir awal waxa kamida مثلا waxyaalaha mukhalafaadka ee khatarta ah ama halista
الغلو في باب الأسماء والأحكام إن غلو بدن كسميين باب كل هذا الأسماء والأحكام مسائل التبديع مسائل التضليل مسائل التفسيق إن غلو كسميين معنى هذا وحوي بدعة عند أهل السنة روح مركز التبديع هنا يو بدعة لو حكومة يضوابط بيقول هذا سيدي سن هو الرع نقولن أيه وحي أسمين حركه شروط أسمين قيود بأسمين ومركز روح على التبديع هنا هي بدعة لفت يضبط أيه مركز وحوي بدعة دي وحيالا فربضنا وحي قلينا يعني أن كم ذهين ومسائل اجتهادية إسلام مركز روحي مركز تبديعين يعني حكومة يانا شروطي iyo dawaabidii doo dejiye sharaacada ma marayaan bal waxay noqonaysaa xal almizaaj ruuxan aan isku dhacnay waa mubtadi kana iskhilaafnay waa mubtadi kana muxuu ahay wahaakada wax kamidana waan soo marnay Soomaa iskhilaafkoodii markaan ka soo waramaynay iyo say u burbureen istabdiicintoodii midba tabdiici kan asbaabta isu xuskunaya wax kamid oo soo sheegay taa marka waxa soo dhaxgalaysa قواعد أنصحها إني تعقيديان وكمثال مثلا من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع يعني وحي كودان روحي أنغو أن بدعنما كحكنو روح أن لا بدعيننا نغو وافقين إساقا مبتدعة وأنا مدى إسكو وضا ما أغين واحد يقول رع نكن أنا بدعا كحكمية يقول رع هداد يقول راعي وإذا أداء مبتدعة ما تقانا أحكامتا أشخاصتا إلا حكمه أشخاص إلا حكم سيدة ومسيدة اجتهادية واحد وطاندين شيء هذا كورو نصوصتا هي أقواش أهل العلم إن شخص اللي صاروا ومسألة تنزيل واحد تحقيق المناط بالإرادة الشخص قاعد سمينا يكون اجتهادية اجتهاد كيسين لقول راعنا لازمة إمسي أئمة المسلمين تو أي اسكو خلافين هبل يعني وحوي تعديلين إيه تجريح ومدين تقول هذا محوها وضعيف من ذي المواثيقه بدين تقول هذا مبتدع ما معها سائل وحوي مجال مفتوح للاختلاف واحد أنا هذانا تبديع إن الراع هذا يتبديع يقول راعين المبتدع باته طيب وأنا ماذا بكي خوارجته خوارجته وحي تقاني خوارجته وغلات في التكفير قلدن وحوي وغلات في التبديع أستامة فربضن بأمريكا إسوا إيمانية سمات بدن بإسوا إيمانية مر هذا غلو ماشى كتير أما غلو في التكفير أما غلو في التبديع وخوارجته وحي لادين كل من خالف قولنا فهو كافر أنك عدي أن قال لما كحكم الروح أن نقول حكم وقال كان وحوي عدي أن بدع لما كحكم الروح أن يقول راعي ومبتدع قاعدة صح معه قاعدة داسي قاعدة صح معها الشيخ الباني عليه رحمة الله بالويدي هذا كور قصة الله يابل أبو كيريو وحوي علماء البانية من كم ذا أيا وحو كان يسيبوري نين مركو غوريغا كسو بخاي كباها اسوغو هاغاجين واي مالا خادم بو اها مركو سو ديار غرو نينك شيخ اها أيا وحو اركب كبيهيون اسكو هاغاجسنين مركاسا وحو يري من لم يهيئ النعل فهو كافر نينكي كباها هاغاجين واي وا قال محو قالوا بيني كان مسكين كي كباها اسوغو هاغاجين واي وفي سميش وكردي لأنه وحوري من لم يحترم العالم فهو كافر وحوري هذا لم يحترم العالم لأنه لم يهيئ له النعال لم يحترم العامل ومقدمة صومها وحكرت بي ومن لم يحترم العالم لم يحترم العلم إنك عالمك عن احترامنا علم قوسا احترام وهذا العلم الذي لم يحترم به هو علم محمد والقرآن وعلم النبي محل القرآن كنا ليه نبي ولا ليه قرآن كي النبي يوصل احترام مقدمات النتيجة كانوا كسي دليل وحيل ملك الجبريل يا الله نموس الاحترام حقيقة بالله وتبارك الله بكبوت بيكبر الله وتي مركزا وحي قال لي إلى جبريل يو بركوا حوي سيدنا نقول يا له
يعني وحوي إلزاماتك يا لوازمتها يا وحيالهاسي وحويان وأرمها البدع اللي قانون وحكور الشيخ الباني عليه رحمة الله وهذا الكوكوك يعني نبا وحو ويدي قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع مرقات الشيخ يسوي هذا ينكر سنوحه من صاحب هذه القاعدة ومن قعدها يا إسكال قاعدة يا ستقعيدية مركاسو مثال كان شيخه كان عليه رحمة الله هيكون شرتها سلسلة الهدى والنور عجل كتضوب والصدوات نشديد طيب وحكم إذا إسلام كاقلي من وقع في بدعة فهو مبتدع روح كستو بدعة كلها ومبتدع مسألة سنة أهل السنة مذهب كذا خلاف سنتها روح كستو بدعة كلها مبتدع معه روح كستو كفر كلها يعني كافر معه وحكى للدون الحكم على المعين والحكم العام باكلا باب الأسماء والأحكام ودن قاعدة سليه وعليه كرت روح إنه كفر كله أو سن كافر نقولن إنه بدعة كله أو سن مبتدع نقولن مذهب السنة والجماعة سيدا سؤال لكن إلى النقطة روحي بدعة كل عبل لفتي سنة ومبتدع ومن قواعد أهل البدع وهكذا أيضا وأي لهذين وأي رقم كوذا كم وغدا من أثنى على من وقع في بدعة فهو مبتدع نين بدعة كل عي روحي أمانة سونا ومبتدع لأن أنا وأنو بدعيني هذا أضو أمانته وأنكو راعيني نوى أيضا منذ السلف في خلاف سنتهي سابقا ولاحقا هذا تراجمت في رسان تراجمت رواد يا علماء هذا في رسان انت صنن وأي كل شيء جيان إنه بدعة كل عيب هذا نعك لك أمانة روحه إنه نعك خلديه ما كان يسو إنه وذا خلديه إنه نعك أمانة هنا ما كان يسو إنه وذا أمانة وحكم إذا مثلا كم وقت قابل كوذا من جالس المبتدع فهو مبتدع هذا الله فريسة طبعا إنه مبتدع بعته وحيدليشنا يعني أقوال ابن مبارك إمام أحمد يوزاعي إليهن أو قاب كودي أي مضوا لهن ماش كودي ميلان هن إشاريان طيب سيدا صحيح أنا مسألة ذا مسألة صح معه ومسألة تفصيل أباهن أو يعني دتك اللي بدعين ينا دتك الله فريسة ينا مبتدع رسمي يهين مرك الله بعضنا الله فريسة الله فريسة يلا فيريو ومسألة مع التفصيل أباهن وحكم إذا مثلا أو يدنا هل كجليسة عد كستا أو سود دليشته عد مبتدع هذا الكيس أما كتبتي سوى حكسو قادته ومبتدع قارهان معاصرين ترجع بدعاء كحكمان أبو العلى المودودي إيو حسن البنا إيو سفر الحوالي إيو سلمان عودة إيو عبد الرحمن عبد الخالق إيو هداوت هذا الكود سود دليشته خلاص وأقول مات هذا صادون تودليش ومساسي مذهب كسلف كهانشرين يا الحكمة ضالة المؤمن نيجا waxa laga yaabaa isagoo mu'tazili ah inay baab luqa ay wax ka soo dalishadaan oo ka qaataan waxa laga yaabaa isagoo khariji madhabka khawaarijta rumaysan inay jawaanibtiisa qaar kamid ah ay ka qaataan cilmiga ka soo dalishadaan in laysa saaro hadiiba aad nin mubtadi'a ka soo qaadato hadal ama kitaabkiisa soo dalisha ama hadal soo dalishato bidcadu waa kugu dhageysaa iyadana waxa weeye waa arin cajaa'ib tadalway waxaa kamida mesela kitaab aan ku tilmaanay inuu ahlul bid'ah leeyihiin hadaad qaybisana mubtadi' baad waxaa kamida mesela kitaabkii Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad rifqan ahlus sunnah bi ahli sunnah kitaabkii markuu sheekhu alifay oo la bilaabay in la qaybiyo waxay yiraahdeen kitaabkan ninkii qaybiyo waa mubtadi' Yahya Najmi nin la yiraahdo ayaa hadalka yiri الذي يروج هذه الرسالة يدل على أنه مبتدع كتاب كواكي حتى كتاب مبتدع معه وكتاب شيخ عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة ننكي قيبية ومبتدع مركا حد مله أو ضابط مله أو حرق مله أو حقيدا مله أو محوها هاي مربى هذا سيدان ربي أنكواي بدا هذا الساروة وانا ميدا كينتي سان هوريبا أسو تلماني إن أي سيدا أقيب سمان إن أيها سا أقيب سمان ويجي سيكالة جمان
laanna waxa weeye sideedaba axkaamtan haddaan la xidhin oo xadhkaha iyo quyuudda iyo shuruudii ay u sameeyeen dawaabidda ahlu sunnaha haddii laga saaro waxay keenaysaa in laysa saaro oo laysku xukumo kadibna la kala tago oo layiskhilaafo oo yacni waxa weye ummaddii ay iyo culimmadii dadkii kala tagaan baabkaasi marka waxa weeye waa baabu tabdiic bal marka qaarkood waxaad arkaysaa ayagoo dadka tabdiicinaya xataa bilaa sabab maalan ninka la yidhaahdo nin sheekho culimmada ka mida oo la yidhaahdo xuseen cawaashiya ayaa waxaa la weydiiyey axmed baazamuul nin la yidhaahdo oo raggooda ka mida xuseen cawaashiya waa nin culimmada urdun ka mida oo nin caalima weeye baazamuulkan oo ka mida raggan atbaacda sheekh rabiic ayaa la weydiiyey kadibna wuxuu yidhi aladii acrifuhu annahu min ahli اlurdun وهو داخل ممن حذر منه الشيخ النجمي رحمه الله تعالى بقوله أهل الأردن لا يؤخذ عنهم العلم والوركة دقيست أحمد نجمي أبو حجري بوري هرير أردن أردن علم لقى قادر معي مركا قولة سوق علي وركيس وذاتك عواشية والأردن ووضن oo imisa culimo joogta oo imisa sunniyiin joogta oo waa sheekh albaani meeshiisii oo ardadiisii baa joogta oo imisa salafiin ahlu sunna joogta ree urdun oo dhan cilmi laga qaadan maayo haddana wadaadkii yidhi lagulama yaabine kuwaaba sii deliishanayaba oo ku sii xukumaya oo dhakan sheekhii meeshii wuxuu ka yimid ama ka soo jeedaa la yidhi culimmadooda waxba laga qaadan maayo war waxani muxuu ahay ma hadal culamaa ma dalabatulcilmi baa hadalkani noocee waaye miisaankee buu leeyahy la yaab la waaye waxaad ka heli kartaan netka طucuunaat rabiic almadkhali wa kibaari acwaani fi salafiyiin iyuu hadalkaasi ku jira waxaa ka mida maalan tabdiica bilaa sababka ah miaaladiisa waxaa ka mida الشيخ محمد مختار الشنقيطي سوما تقانان محمد مختار الشنقيطي nin caalim ah oo faqiiha sheekhanagii ahaa ka akhrisanay warica aad u dhowrsoon isagoo kaleba ay yar tahay dadka in hadda laga helo nin noocaas waa sheekh rabiic baa wuxuu leeyahay yuqaalu lii ina hada الrajula yamshi maca alxizbiyiin wayamshi maca الsuufiya walaa calaaqata lahu biahli الsunna hay-at kibaar اlculamaa buu ku jiraa sacuudiga walaa calaaqata lahu biahli الsunna falaa astadiicu an uzakiya intaajahu walaa uzakiihi لأني ما قرأت إنتاجه كتبته soo saaray iyo wuxuu alifay waxba kama akhriyin buu ma taskiyeyn karo marka suufiyada iyo xisbiyiinta iyo waxaan uu la socdaa طيب haye wa ahlu sunna la yurawwijuna lahu ma sheegaan ahlu sunna inma yurawwiju lahu alhizbiyun wa huwa la yatadhaharu annahu hizbiyun ma muujisto isagu ma sheegto inuu xisbi yahay laakiin lama huwa يعتبرونه إماما من أئمة المسلمين فذلك يدلك على أن الرجل منهم فهو جسر خطير لجر الشباب إلى التحزب وكتب السلف تغنيكم بليه يعني وحويان حزبيين باك أكفر يستوى وحكر يستوى كتبتي سود وضوء ما المشكلة وحزبي الشباب كانوا يلحم بوسي وضع wax sabab ah oo la taaban karo oo sheekh rabiic wadaadka uu ku xukumay ma jiro mujarrad masaaj xisbiyiin baa ag fadhiisto darsiisa ka dhisto kutubtiisa wadwada ilaahay kugu dhaariyo wax bid'aada lagu xukumaa xataa biduuni sabab baashi marka halkaasay gaadhay markii xadhigga laga furo xuduudda laga furo loo daayo hawada ruuxa loo daayo halkaasay gaadhaysaa saas way macnaha dal dhan in la yidhahdo culimmadiisa waxba lagama qaadan karo sabab la'aan dadka in layska xukumo halkaasay maraysaa ayib miaal inta aan kaga baxo waxaa idinku filan waa kan soo marnay markay iskhilaafeen ninba ninka kale inuu tabdiiciyey waxayna arrintaasi tilmaamaysaa dawaabid la'aanta masalada waxaa masaladaa ka mida ruuxa iskhilaafaan hajru lmukhaalif يعني عدي أي سكول عانو إسخلافان إلا جه هجرودو
لقويو ومدى اللو قدقو علمي سلا إهداريو إساق إسقاطيو مسألة هجر المخالف أما هجر العاصي أما هجر المبتدع عنه ومسألة أيضا الضوابط له عند أهل السنة والجماعة أما هنقض هجر وقائق أما هجر تحذيرك وحنوش هذا محمد تعزيرك تأديبك هنقض لا وضع مثل هنقض لكن هجرك سيأهانتي سنة موضة بنانا سيأهانتي سنة ممنوع معها وحوكو حرية قاعدة اللي هذا قاعدة المصالح والمفاسد مع مصلحه كذا لا ينسى محاسب مفسده كذا ليس لكن إن ستوس صدتك اللوجو بمجرد أن تكون عدين واللوجو ديجو أيضا هجري شرعي جاها وحيو استعمالا سخلدان أيقون واسو استعمالا ومدك لنا واسو استعمالا وحكم إذا أوبابك بدعة جلية بدعة اللو يقان بدعة امتحان الناس بالأشخاص إن دتك اللوجو امتحانه أشخاص أو لوجو هذا هي بالكور إن لوجو هذا مثلا قرضاوي كورن قرضاوي ما حد كرميزن ده هذا هو شيخ عالم هو كانوا هدات هذا خلاص ويقول لك على مركز حسن البنا كورن ما هي كورن ما هي سلمان العودة كورن ما حد كرميزن ده شيخ ربيع كورن ما حد كرميزن ده شيخ ربيع ما شاء الله إمام أهل السنة والجماعة بس كان كواضح يستطيع مركز امتحان الناس بالأشخاص سلذا وبدع محدثة علماءنا وإنكران ومن أولية هي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نيك الذي يزيد بن معاوية مركو حلك مسلمين تقبتي أيال اسكو خلاف مركا وحال بلا بدتك قار كود إنه يكون امتحانا يزيد بن معاوية محاد كرم يسنته وحو كرم يسيه مركا قوان كذا لقى قاتل مركا وحوليه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة مركز حديث بخاري كان كذب نوحي فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان الناس به فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة نين إن دتك لغو امتحانه ماذا بكي أهل السنة والجماعة وخلاف سيء وحكى لهم كم إذا هذا الله الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله أوليه وهذا التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر به الله بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أرنكاس وحوله وتفريق للأمة سيدوك لو حاسدا سوكلا وجه الله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عبد المحسن العباد بايسانا كهالله كتاب كيسا الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع آد بعلماء إنكرين هوشا يدا عليه الشيخ الشيخ ابن عثيمين ما بالنا نمتحن الناس الآن ونقول ما تقول في كذا ما تقول في الرجل الفلاني ما تقول في الطائفة الفلانية أكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن الناس بهذا أم كان الصحابة يمتحنون الناس بهذا إن هذا من شأن الشعب الضالة التي تريد أن تفرق الناس ذاتك إن أشخاص لقوا امتحانهم حد كرم يسنتهي بغضا أو حبا بدعد آي لي ما دين بيكم يتهي طيب وحكم إذا وحيالها مخالفات كان لقوا هيسته وإسكعد تفريق كلمة المسلمين مسلمين تكلمة دول لك لقيو وكان صوت المعني إن يجو كلا تجانو إسخلافين الشيخ يحرتيسي أدنى كي كلا سي كلا بحا أدنى سي كلا بحا أنت كليا كمين قابسانينه دعاء دي كلا عالم الإسلامي تشرتينا ماذا حكمان يماذا تبديعيان يماذا تضليليان بكديه بل عد كان نبض كالشيء تبديع عودة وعالم الإسلامي علماء تشوكتا كم إذا ويريها وأنا أوتك دونا وحبان كتلمام دونا إن شاء الله تعالى علماء قاركود وحي تلماميان فتنة كوين أهل السنة أنت هذا اللي حسوسين هي عصور تنضم فتنة كوين فتنة الشيخ ربيع وكان مصومرين لأن وحي كهر يؤفر صدى ذاتك أهل السنة ديب كان مدعولين تضوض الصعودة سنة صحية خلادات كود الصحة ولا لا اسكت دوبا
isku qadiyad ah bay ahaayeen markay haddii muxuu ahaay soo baxay fikirkeen madhabkani soo baxay iska daa ummaddii kaleete intoodii iska agdhowaa ayaa kala dhaqaaqay masaladaa marka ku noqon maayo aad baan uga soo sheekeeyey markay culimmadii kale caalamulislaamina dureen hadday qurbaha joogeen hadday caalamulcarabi joogeen hadday afrika joogeen markay dureen maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay in cilmigoodii laga tago in wax laga barto laga tago la isqaatiyo halkaa maxaa ka baxay marka halkaa waxaa ka baxay diinta faafideedii leanna diinta faafideedu waxay ku xidhan tahay sumcadda culimmada dadka culimmada haddii sumcaddooda la dilo wax diin ka qaadanaya ma jiro wax diin ka qaadanaya ma jiro aafadaasi marka waxay keentay meel kastoo culimmadu joogaan kii la socdayna intuu la socday kadib markay iskhilaafeenba way tuureen kuwii kaleeteen raacinna dadkay ku direen dad yaroo dhallinyaraa marka waxa weeye oon waxaan kala saari karinoo iska ilaaliya la yidhi culimmadii waa laga cararay qurbahan aniga aad u soo maray yurub baan soo maray kanadaan tegey australiyaan tegey dhallinyar yaraydee soo islaamaysay oo culimmada ku xidhnayd markuu fikirkani soo baxay oo uu galay waxay bilaabeen inay yidhaahdaan sheekh hebel ka warran koox heble ka warran hadda mar dhan buu soo islaamay ogow kadibna waxaa leey sheekh hebel iska ilaali oo masjid hebel iska ilaali oo muxuu ahay halkaa iska ilaali mar dhan buu soo islaamay ani waxaan dhegaysto cajalad ka dhegaysta wadaad hadda wadaadadan ka mid wadaadada soomaalida ka mid oo yurub jooga ayaa mid baa la soo xidhiidhahay maaqan makanadu ka soo xidhi mise heblu ka soo xidhiidhahay cajalkaan dhegaysta marka wuxuu weydiinayaa soomaalida iyo ururadeeda dacwada qaar ka mid iyo culimmadeeda qaar ka mid marka wuxuu leeyahay sheekh what about taxaad what about taxaad mar sheekhii markaasuu itixaad fasiraya you mean itixaad marka itixaadkii buu fasiraya markaasuu leeyahay what about shariif cabdinuur what about shariif cabdinuur markaasuu wuxuu leeyahay shariif cabdinuur is xisbi xisbiyadu taageera waana xisbi ilaahay baan kugu dhaariyey wiil shalay soo islaamo miskiin ah oo kelimaadkii xataa karila maxaa shariif cabdinuur iyo itixaad ka galay oo kanada jooga baladu isweydii wareerka caalamka ka dhacay iyo burburka dacwada ku dhacay iyo aafada dhacday ninkii caalamka maray baa garanaya dhaawaca gaadhay marka aafo ka weyn fikraddan markay ku soo biirtay dadka sunnada iyo ahlu sunnaha iyo dacwada guud ahaanba aafo ka weyn casrigan iyo wakhtigani ma soo marin baan aniga dhihi karaa qiyaastayda waxaa ka mid a waxyaalaha muxuu ahaayey khaladaadka ah ee muxuu ahaayey ka muuqda dhaqamadooda arrimaha muslimiinta ee guud marka la yimaado inayna aad u danaynin ama ay ka saftaan ama aynan danaynin oyna dan ka gelin ama ay ka saftaan waxaa ka mid a maalan haddii calmaaniyiin iyo wadaaddo isqabtaan gaar ahaan ikhwaanuumuslimiin iyo hadday calmaaniyiin isqabtaan calmaaniyiintay la safanayaan waan idiin sheegay hadda ka hor maxamed raslaan xilligii doorashadii masar calmaaniyiinta inuu la saftay kitaabna qoray ikhwaanuumuslimiinka doorashadooda uu kaga digayo ma soomaana idiin soo marin ayib nacaybka ikhwaanuumuslimiinka ay u qabaan iyo quluwiga halkaa ku jira baa waxay keenaysaa calmaani iyo diinlaawe iyo liberaali iyo wax khariban oo diinlaawo ah inay kala saftaan allana qur-aan kariimka muxuu ku yidhi غulibat الruumu fii adnى اlarضi wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna fii bidci siniin lilahi اlamru min qablu wamin bacdu wayowmaئidin yafraxu اlmu'minuuna binasri اllah
furs iyo ruum oo laba dawladood oo gaalo ah ayaa alla wuxuu inoo sheegayaa goorta ay ruum oo nasaaro ah furs oo dabcaabuda ay ka adkaato inay mu'miniintu ku farxi doonaan guusha ruum waa laba gaal ogow soo ma laakiin labada gaal baa inoo kala sokeeya ahlul kitaabka inooga sokeeya dabcaabudka dabcaabudku goortuu ka guulay kan krishtanka markuu ka guulaysto dabcaabudka mu'miniinta ku farxaya buu alla leeyahay haddii laba gaaloo kuu kala dhow ka kuu dhow aad ku farxayso guushiisa muslim weliba muxuu ahay diin ku abtirsanaya iyo calmaani inaad calmaaniga la safato biayi diin miisaankee way miisaankaas waxaa ka mida maalan ururkan xamaas ee yahuudda la dagaalamaya waa urur ikhwaaniya waay xarakada ikhwaanku ku abtirsada nacaybka ay ikhwaanka u qabaan daraaddeed ayay dagaalka iyo jihaadka ay xamaas ku jirto ayaynan qayb ka ahayn bal iskaba dhaafay xamaas baa ka baxsan weyday wadaadkan hadda idiin sheegayo maxamed raslaan la leeyahay wuxuu leeyahay xamaas sinaaca yahuudiya أنشأها اليهود والأمريكان النصرانيون وهي رافضية وهذه حقائق حماس ويهودية يهود باسميسي ومريكان باسمي والرافضة والشيعة إيران بيكون حرنتها الكاسة إلى مريم أما eedda waxay saarayaan dagaalkan soo socday 72 sano ee yahuud iyo muslimiinta ka dhaxeeyay ee baytul maqdis lagu qabsaday ee muslimiinta inta leeg taariikhda lagu baabi'inahay ayaa waxay hadda eedda saarayaan waxay leeyihiin khaladka waxa iska leh xamaas oo xamaas ka hor ururkan fatxi la yiraahdo ee calmaaniga ah ee ninka la yiraahdo muxuu ahaa oo maazin muxuu ahaa Abbas miyuu ahaa يا وهجامي محمود عباس وهجامي أيا دجالك ودي دجالك مركي ودينا والوجلة شري وأنا لا أماني دولتها عربون ويجرب تاجناي قرتي حماس أو أور إسلامية أي دجالك أيضو وضو ما إسلامي ماذا يأذي إسلامي ماذا يأذي وهو حجيبة مرك كبس السوقات أور كان وأور إسلامية دجال بيكوتشران شعب واي يهود بين لا دغالميان ولا بابي حتى ما كحشون ويدينات كامست هذا حتى حقوق قوانين wax la yaab loo marka goortii gaala iyo islaam xataa ishayaan inay islaamka dhabarka ay muxuu ahay ay ka duraan mooyee waxoogaa xataa wax weeye war ka xishooda xataa marxaladan waa marxalad laga xishoon lahaa xataa ma jirto yani waa ragii odayaashooda ahaa waay waxaan ka hadlay ee tasriixaad ka bixinay طيب waxaa ka mid ah maalan oo iyadana la yaab leh sheekh rabiic fatwo uu leeyahay baa jirta oo uu leeyahay ahlu sunnaha liibiya salafiyiinta liibiya ha ku biireen xaftar ma taqaanaan اللي هو حفتر وأنا جنرال أهو علماني أهو جاسوس جنسية أمريكا كان هايست قذافي بأنتو الله يابي أيو إريي بل قذافي نينو كعود بالله سكور نكي قذافي بكعود بالله استي أيو شيخ ربيع حوليها السلفيين الليبيو حفتر تقو كبيرة هذا الشيخ محوها هاي الشيخ ربيع ما هو بين أبو رني فتنة يوحنا مركو كدي وحوليه يعني وحقدر دار ميا إلى كبيران وحل هذا أن ينضموا إلى إخوانهم السلفيين تحت راية حفتر ساسولي
يوتيوب كي كوتشرتا عنوان كضربتان فتوى الشيخ ربيع للسلفيين بالانضمام تحت راية حفتر. حفتر وحول الله قال يا منتقانا دولة أي إخوان المسلمين كي سنيين تكوتشران ليبيا هذا هايستي لو اعتراف سيه اسكت تبرت درن دولة سكوهر تشيدا يو فلاقو الله دقالمي هلكا waxaa ka dhashay raggii sheekh rabiic raacsanaa inay ku biiraan xaftar uu khudbaynaya wuxuu amaanayaa salafiyiinta ku soo biiray culimadii liibiyana way ka hadlayaan oo sheekh rabiic oo xirtiisii ku biiriyay xaftar oo falaaga halka wixii ka bilowday waxa bilowday katiibada loo yaqaano al-kataradeed waxa la yaabay wadaadadii mid ka mid ah Ubayd al-Jabiri leeyahay yaa mardanba wuxuu arkay hawshu meeshay ka dhacday markaasuu wuxuu leeyahay war xaftar waa falaago dawladdan la ictiraafsan yahay dhalinyaradii hubka intaad dhigtaan ku soo biira waa goorma waa goor xeeriyo fandhaal kala dhaceen oo dhalinyaradii ay meesha ku biireen oo ay katiiban noqdeen oo hawshooda wataan waxa kamid ah isla qodobka galaya wadaadka la yiraahdo Salim Tawiil waan ma turiidiyo وانا محوها حنفيه متعصبه وراdeero mutacassibadooda iyo yani ma turiidooda ha ahaadeen haday gaaladii dhulkii ka saareen islaamna ay maamulhayaan wixii ka khaldana ma uga naseexee ya ama kada weerarka kada marka qadaayaadka muslimiinta marka la yiraahdo ayadana fashalkaas ka jira qodobada marka way farabadan yihiin waqtigiina waa dhamaaday aan ku soo gabagabeeyo Soomaaliya markaynu hadda joogno markaan Soomaaliya joogno Soomaalida dalkeeda axmaara qabsatay ilaa caasimadii magaalada Muqdisho tageen waa la dagaalamay culimadii baa fatwootay wala iska saaray aaway dowrkii qoladan wax fatwo ileeyihiin wax marada la iska xiriyo ma noqoshay dowr male bal markii nimankii qabqablayaasha ahaa golahoodii gaalada la shaqaysan jiray magaalada Muqdisho kala googooyay diinta iyo dadkiina eber ka dhigay markii maxaakimtu la dagaalamayeen ragoodu intay fatwoodeen bay dhahan waa harbu fitna war qutaacu turuqan kharibane gaalada la shaqaysanaya dadka leynahayay diintii halka dhigay hadii awood loo helay in la iska xiliyo xagee harbu fitna ku tahay ala fil fitnati saqatu ala fil fitnati saqatu Soomaalida qarxiya ku dhacay Soomaalida abaara ka dhacay Soomaalida aafaad guud baa qabsaday aaway dowrkoodii inta Mareykan laga soo gurmanayo oo Yurub laga soo gurmanayo oo Afrikaan laga gurmanayo oo wadan gudihiisa laga gurmanayo wadaadadani aaway dowrkoodii aaway kaalintoodii aaway bal isweydiiye marka qadaayaadka waaweyn ee muslimiinta u yaalay ayaga agtooda waxa kala weyn wadaad miskiin oo meeshan duruus akhrinaya in la yiraahdo iska jira waa mubtadic ama markaas meeshan wax lagu baranayo in la yiraahdo muxuu ay ka fogaada ama wadaad waxoogaa nidaam samaystay oo tawxiidka iyo diinta faafina in la yiraahdo waa xisbiyiina ka carara yani waxa keenay waa manhajka waay fikradda keenaysa fikradda waa fikradda la dhaxlay fikradda marka meel bay ku wajahantahay ihtimaamaadka iyo qadaayaadkii waaweynada ummadda lahaydna taxriif iyo inxiraaf baa ku jira arimahaasi marka wax weey waa qadaayaadka asaasiga ee loo baahan in la fahmo fikirkani marka la doonayo asalkiisa in la gartiyo xagee u socda mafaasidiisu maxay tahay waxaan u cadeynaynaa ujeedadu ay tahay ummaddu inaysan ku kadsoomin inta ku kadsoontayna muraajacaad intay sameeyaan inay diintooda u turaan oo dalkooda u turaan oo aakhiradooda u turaan oo meeshani meel ma aha muxuu ahaay ijtihaadaad wadaada ku kaceen way kuna khaldameen nasna ma aha salafiyana ma aha xadiisna ma aha
ahlu sunna dariiqiisiina maaha wadaadda khaldamay baa dariiqan jeexay idinkuna ha ku khaldameelo ilaahay ka baqo diintiinna iyo aakhiradiinna ka ilaashada dadka kaliya dhallinyaradana ayaan lagu khaldino shaati salafinimo inta loo geliyo yaan khalad la gelinin halkaas insha allahu tacaala waxaan ku gebagabaynaynaa xalaqada caawa oo ahayd mabaadi'da iyo usuusha iyo qawaacidda iyo simaadka muxuu ahay xisbigan muxuu ahay markay yimaadeen ama lagu arkay ama qaarkood sameeyeen ama ay ta'siiliyeen ama iyagu isku xukumeen ama bulshada ay kula dhaqmeen wax ka mid ah inoo sii laaban insha allahu tacaala qodobo oo isla qodobkaa la socdaa jira dib aan u dhigan doonnaa insha allahu tacaala caawana intaasaan ku gabagabayn doonnaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala maadaama xalaqadii shanaad ay ahayd waxoogaana la yaro daalay waanu yaro nasanaynaa xalaqada xigta weli mawduucyaa inoo laaban kan waan dhammaystiraynaa kuwo kalena waa inoo dhimayey laakiin insha allahu tacaala wax yar laba habeeniyo wax saas waan ka nasanaynaa kadibna waan ku soo jiirayn doonnaa insha allahu tacala hada billahi towfiiq وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله